shuhradu waa balaayo qofka hadduu shuhro rabo waa musiibo oo rabo inuu soo baxo qoladaas nin kamid oo Hargeysa jooga wuxuu reer Hargeysa waxa la yiri Sheekh Barbaraawi maxaa ka rabtaa raga hoos u wareysteen maxaa ku haystaan ma si dhaba u hadal wuxuu riniyo hadduu ninkaas meesha joogi lahayn Hargeysa ana sheekh ka noqon lahaa asagu horgo'an marka in iska wareejiyaan rabaa ninkan fiiri marka fikirka meesha uu marayo yani ujeedku diin ma ujeedku waxa waaye rida anigana aan soo baxo taas marka diin may ku noqonaysa la fi dunya wala fi aakhirah midna ku anficin حديث كلي وحلا ويدي أي الناس خير تدك يا أخير بدن قال أنا ومن معي وحاوق خير بدن بقى النبي صلى الله عليه وسلم أنا يعد إيوهرسه قال ثم من يا كسي حقه قال ثم الذين على الأثر كورات كهيا كسي حقه dadka qaar salafinimadii waa ku qalloocmatay waa ku rogantay waxa loo nisba sheeganay horta waa kitaab iyo sunna ala fahmi salaf salih markaan leenahay salafiyiin annahay salafinimadu urur ma aha xisbi ma aha salafiyiintu amiir ma leh dhahaya beecal idin ka qaaday hal igu soo daba fayl oo samciyo taaca idin ku waajibtay nin dhihi kara ma jiro kaliya waxay leeyihiin culumo dacwada culumay leedahay talabatul ilmina way leedahay waxa la yiri ahlul baatil ki ahlul bid'ah waxay kamid tahay min manhaj salaf in wixii baatil ama wixii munkar la radiyo oo salafka ahlul bid'ah wixii baatil waa naqdin jireen dadka qaar salafinimadii waa ku qalloocmatay waa ku rogantay ninba waxa la yiri nin indhoolaa buu ahaa waaba wuxuu arkaa la yiri marka bakayle asoo intuu indha beelin ka hor kadibna waa indha beelay markuu indha beelay kadib waxa la yiri markii la yiraahdo war maroodiya meeshaan maray wuxuu leeyahay bakayle xaq uu kala eegaya libaaxa halka mar wuxuu leeyahay bakayle xaq uu kala eegaya waliis bakayle arkay wax kala muusa arag dadka noocaas oo kala ah حقيقة دعوة أبتر ودبقوا عنها مرك هرنا وحما برن وحبرشدوا ذي وقت ودن وحي كل ميان قيل وقال أذنك مركا إذا لما قد بونا إنا وحاسي جبي أهم بالوض وضوح علمك هذا برتان قد بسان إلهي درتينا أيدن كتهي دعوذين إله بركينا نكي يدان كلاله وجددوا أي تهي أذيك صباح مرك قروح أجرت فكر قف مثلا دتك يقانان كلك سلوغو برت عيد jirta waa nin baa wuxuu yiri la yiri waxaan rabaa in la barto dadka wala tashana marka wuxuu yiri seel la ugu bartaa umada dhan hal mar inay bartaan aan rabaa nin baa la taliyo wuxuu markii la xajinayo biyaha zamzamka ku kaadiyo ilaa wuxuu rabaa magacuun ama caay ha noqoto ama amaan ha noqoto si uu ku soo baxo zamzamka kaadi la dul istaago warninkii zamzamku kaadiyo aawo sallee waa ninkaas wuxuu rabaa intaas marka walow bidami ha noqoto ha uu ku caan baxo inuu zamzamka ku kaadiyo shuhradu waa balaayo qofka hadduu shuhro rabo waa musiibo oo rabo inuu soo baxo qoladaas nin kamid oo Hargeysa jooga wuxuu reer Hargeysa waxa la yiri Sheekh Barbaraawi maxaa ka rabtaa raga hoos u wareysteen maxaa ku haystaan ma si dhaba u hadal wuxuu riniyo hadduu ninkaas meesha joogi lahayn Hargeysa ana sheekh ka noqon lahaa asagu horgo'an marka in iska wareejiyaan rabaa ninkan fiiri marka fikirka meesha uu marayo yani ujeedku diin ma ujeedku waxa waaye rida anigana aan soo baxo taas marka diin may ku noqonaysa la fi dunya wala fi aakhirah midna ku anficmayso fikirka noocaas oo kala ah wax lagu soo daalay dadkeedina la yaqaan beenka ma xishoodaan haday la gasho waa sheegaya wax badan aan ugu arko عقيدتي iyo manhaj salaf madaneeyaan Sheikh Abdul Karim Hassan Xoosh xafidallah wa taqanan in bal ajaliis waa dhageysateen amaleena waa sheekh salafi yaman anagoo joogna waxa la yiri salafi ma nina warqad ii keenay ay ku qoran tahay 15 nuqtadood ku qoran oo leeyahay waxa lagu haystaa Abdul Karim hal tusaale markay kaga soo qaaday waxa cinwaanka ku qoran Abdul Karim saxaabada cadaaladooda ma aaminsana saxaabada inay cudul yihiin ma qabo warkaas war weyn waay tabcan kalaan wax shiical u yaqaan warkii markaan arkan waxa ay ninka ii keenay waxa ay warkan soo hubi masdarka sheega حنا لا سو دغيس وا باري مصدرك waxay dhaheen waa maraaq sacuudka markuu aqrinayo maraaq sacuudka ajalkii tilmaameen la dhageys shakhsiyan anigu dadka dhageystaan ku jiray meeshaas nuqtadaas wuxuu leeyahay sheekhu عدالة الصحابة كلهم لما انتد إجماع مياه مسوي حاجة ضد لصوا استثنوني مسألة علماء كهلا الإمام الشنقيطي مذكرة وهلا يا خطيب البغدادي رحمه الله تعالى وكهلا في بعض كتبه الكفاية إنه هي ملعنا وحي الشاقين إن يجران علماء قار صور ريبان سيدا مثلا إنك يكسو دكت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ويكسو دكت الوليد إنه هي ملعنا رغم نوع عصا كلام شيخ أنت تلمامي أما قال هذا سيدان تري واحد مودا إن قولكم أو حق ليه وقالدي بتري وحبال صو استثناء فيري مركا عنوان كماشان كويا لا يرى عدالة الصحابة إيه هذا الكوح إسله إيه وح إسكوله منا ما وهذا مركا الجولية ده روح استهرت غضب النوع عصا كلا واي حدا ترى هذا مركا أما قفير هذا وحسن دبجلا أسد داله بين لما دبجلك مد مركا أكو قبضهم مد كلو هذا نص مهنا هذا ما نور بما شقلاء له مركا أنا بنتي زر الرادس وما شقلي ما حقوق في عن مركا وحقوق في عن طلب علمكم وقتينا كحرة
jaanibkaas khayr allah idin siiyo annaga marka waxaan laga rabaa dacwada inaan qaad markiiska markaan furayno ballan aan ku furno waxay ahayd inaan ku mashquulno cilmiga iyo waxbarashada wax kale miyaan iskugu nimid yaa cilmiga aan baranayno asaa wuxuu ku kala barayaa yaa saxsan yaa qaldan asaa wuxuu ku kala barayaa maxaa manhaju salafa maxaa manhaju khalaf asaga wuxuu ku kala barayaa waxa ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali ka yahay wuxuusan ilaahay